wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya kana mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee laga doortay deegaanada Puntland muddooyinkan ku sugnaa deegaanada Puntland ayaa kormeer shaqo ku tagay kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo maamulka degmada Carmo taliska kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo saraakiisha iyo ciidamada ka howlgala kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya ku soo dhaweeyay kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed waxaana ugu horeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada ka howlgala kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo salaan qaadasho kadib wasiirka iyo wafdigiisa ayaa kormeer u kurgala waxa ay ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee kulliyadda sida fasalada wax lagu baro ciidamada garoomada iyo xafiisyada waxaana uu wasiirku sidoo kale booqday qaybo kamid ah kulliyadda oo uu burbur ka soo gaaray roobab kal hore ka da'ay deegaanada Puntland wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa sidoo kale waxa uu kulan la qaatay taliska kulliyadda iyo maamulka degmada taasoo ay uga xog warameen xaaladaha kulliyadda ku xeeran taliyaha kulliyadda tababarada ciidamada booliiska Soomaaliyeed gaashaanle sare Muuse Axmed Cabdiraxmaan Muuse Xasaasi ayaa wasiirka iyo dowladaba ka codsaday in la howlgeliyo kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ku dhiibeen hadii la raali ka dhigo qoraal intii oralka ahaydna waa ku sheegnay intii qoraalka ahaydna gacantan ka saari doona hadii aan leedmo si aad ugu gudbisid mas'uuliyiinta ka sareysa mudane wasiir waxa kulliyaddan ka baxday ciidan tiro badan oo runtii la oran karo waa ciidanka ugu tayada badnaa dowladda Soomaaliya meel kasta ay joogto iyo maamulka Puntland 6719 askari oo tababaran baa ka baxday mudane wasiir waxaan ka codsanaynaa waxa la wixii kulliyaddan u baahan tahay in looga faa'iideysto qaabkii loo dhisay dowladda Soomaaliya iyo Puntland waxaan ka codsanaynaa inay dardar geliso kulliyaddan oo dib habeyn ku sameeyso oo ay camirto maadaama ay tahay kulliyadda labaad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed inteeda nadiifta ah waxa loo baahan yahay in aqoon kororsi iyo tababar gaar ah lagu gudoomiyaha degmada Carmo Nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax ayaa uga mahad celiyay wasiirka iyo wafdigiisa kormeerka ay ku sameeyeen kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo waxaan ku leenahay ku soo dhaw kulliyadda Carmo iyo degmada Carmoba insha Allah waxaan rabnaa wixii dalka looga baahan yahay oo kulliyaddu haday noqon lahayd xuquuqda ay leedahay ku leedahay dawladda dhexe waxaan rabnaa inay lala wadaago sidoo kale waxaan rajaynaynaa baahiyaha aad aragtay kulliyaddu u baahan tahay kulliyaddan waa saan horeba u sheegnay waa kulliyadaha ugu waaweyn Afrika lagu tilmaamay marka baahiyo tiro badan iyo dayactir baahsan bay u baahan tahay iyo qalab iyo agab intaba waxay u baahan tahay in Soomaaliya looga faa'iideeyo waxay u baahan tahay in Puntland sidoo kale aad uga faa'iideeyo wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdinaasir Saciid Muuse Biixi ayaa sheegay inay wax ka qaban doonaan baahiyaha ka jira kulliyadda ciidamada booliiska Soomaaliyeed dhawaana la rajaynayo in dib loo furo tababarada ciidamada booliiska ee dalka gudihiisa ugu dhaqsiyaha badan akademiyada dib loogu shaqo geliyo ama loo howlgeliyo waxa farxad ah in maantay ciidan ku dhow 7,000 oo askartii ciidanka Soomaaliyeed ah oo gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo meel walbana maanta Soomaaliya ka jooga inay ka aflaxeen akademiyada Carmo oo macnaha baaxadda inta la eg taliyuhu sidoo sheegana ciidanka ugu horeeyay oo dawladnimada lagu aasaasay inay iyaga ahaayeen oo waa ogtihiin oo dalka markuu burbur kadib ciidamadii la dhisay ciidanka ugu horeeyay oo halkaasi la keenay waxay ahaayeen ciidamada lagu tababaray Carmo maantana Soomaaliya meel walba ay joogaan shaqooyinka ugu fiican qabta oo ku amaanan yihiin in marka ka wasaaradda ahaan aan mar walba focus ka saarno in booliska la tayeeyo oo waxa uu baahan yahay wasaaraddu mar walba oo la heelan tahay kulliyadda tababarada ciidamada booliiska Soomaaliyeed ee degmada Carmo oo la furay 2005 waxa ka soo baxay in ka badan 7,000 oo askari kuwaasi oo iminka ka howlgala gobolada kala duwan ee dalka Maxamed Baras Ciid Maxamed Dadaal raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland magaalada Carmo